hormaro waxay ka hadashay qodobka koowaad qodobada maanta waxay ku salaysneen labada waalid oo wanaag iyo ixsaan lagu sameeyo labada waalid oo axad kastoo halkan yimaada laba waalid baa asal u ahaya oo laba waalid ayaa dhalay labada waalid inay wanaag iyo khayr loo sameeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala amray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلهي سبحانه وتعالى وحور حكمي عد أعصرك أنا لعابدي وقدرك كورادوي قدرك لبعض إلهي سبحانه وتعالى وحكمي لبعض وارد إلي إحساني وناك نسبيه محايا للمد وارد أنك ويفذيينه محايا ليران تاريخ ayaka waxaa kusoo barbaariyey ayaka way markaa labada waalid oo markaa abaalka iyo gallada kugula inay walaal loo sameeyo way mudan yihiin inay lagu noqdo jazaa ma mudno maxaa yeelay adigoo yaroo hataa waxba iska gujini karin caanama qaadani karin saxarana iska dhaqi karin bay kusoo barbaariyeenoo adigoo waxay kusoo gaarsiiyeen ilaa adiga isku filnaato bay kusoo gaarsiiyeen markaa labadii waalid oo intaa kusoo wadeen waxay mudan yihiin in lagu abaalkoodii meel looga dhacmo muddo waxay mudan yihiin abaalkoodii inay wax kamida dhakutay mudan yihiin maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay labada waalid qofna ha oranina hana u gurguurayna bimacnaa waxaa laga wadaa labadii waalid inaa ilxun ku fiiriso oo yaa habel markay ku yidhaahdaan markay 3 jeer sii mara inaad tiro hoo loo saa u fiiriso bay muriyiin ma mudno kaa mudno maxay kaa mudnaayeen war hebel markay ku dhahaan in agtaad kusoo cadday kaa mudnaay laakiin kaamay mudneen markay mar intay ku yeedhaan mar labaada sii marayna hoo tiro adigoo maqlaya weligu waryaa habel bay guree waa maqlaysaa waa aamusanta mar labaad markay sii marayaan baadaysaa haa kii ugu fiican kii kale u aamusiya intuu ordu dhahay maxaa kaa may uu kaa muday waalidka ma mudo adiga saxaradaadii bay gacanta gelinayeen qofna maysan oranaynin inaa markaa saxaradoodii uf diro markay ugu baaxadaa inaad saxaradoodii ayagay kuu baaxadaa inaad maanta adiga saxara ka hagaagiso inaad tiro qof war saxaradii ugu dilay wax saanu qaadaynaa ku dhimanay danaxayna ku dibay laga xujay waa danaha sheegaysa yaa asal ku ahay ayaga kusoo gaarsi intaa gaargunaysa idinba ayaga gacanta kuu soo helay hooyada ufbaysan oranayna xaalkaa iyo saxaradada ufbaysan oranay leeftaada ufbay oranay ilaa markaan leefteeda uftira saxaradiina uftira kaadadina uftira kaama mud waalidka noocaas oo kale ah ay maanta qodbada tilmaamaysa nusuus badanna way ku timaaday weliba waxaa waxyaalaha dambiyaasha weyn waxaa ka mid ah shirku billah ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda asaaka in loo sheegiyo qodobka labaad waxaa lagu xujiyey mataqaana xuquuqu waalidayn labadii waalid oo caasi lagu noqdo waa dunuubta weyn bay kamid tahay markaa marnana waalidkaana caasi ha ku noqonin hadduu dhintay iyo hadduu nool yaho labadoo baarisameeskoodii sidii bugu taagan yahay baarisameeskoodi sidii ugu taagan waalidka mar uu dhammaanay baarisameeskiisana u jira haddaa noosho iyo hadday nool yihiin hadday dhintaan iyo hadday dhimanin baarisameeskoodii sidii bay u leeyihiin markaa in loo baarisameeyo ayay mudan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala salaada tukana ilaahay subxaanahu wa tacaala naga aqbalo muslimiinta inta xanuunsan oo dhibaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunkiiyo dhibka ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaado inta caafimaad haasatana ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadkeeda ilaahay ku siyaadiyo inta maaragtay muraadaha ilaahay muraadkeeda san ilaahay u sahlo intii maaragtay walwal iyo tiraanya ku taagana والولك يتيران يد الله سبحانه وتعالى كفيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان